ku xidhnow badda cas 24 TV. Dhakhaatiir ka socda dalka Taiwan ayaa magaalada Gabiley ka bilaabay adeegyo caafimaad oo bilaash ah waxaana adeegyadaasi u fuliyeen dad tiro badan dadka saboolka ah iyo dad kale oo fara badan iyo dadka aan awoodin kharasho ay ku tagaan kharasho ay ku fushadaan adeegyadooda caafimaad dhakhaatiirtani ayaa hal maalin adeegyadaasi bixin doona waxaana ugu horeyn soo dhaweeyay bahda caafimaadka mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale maxamed cabdilaahi jaamac booq oo si mutadawacnimo ugu sameeyay harimo sharafeed waxaana ugu horeyn ka warbixiyay adeegyada ay bixin doonaan dhakhaatiirta noocyo badan ee isku jireen Taiwan ka yimid maanta halkan waxa mahadda leh dhammaan ciddii wax ka geysatay oo ugu horeeyo mulkiilaha booq maxamed cabdilaahi jaamac oo hawsha waa qayb weyn ka qaatay talabaad waxaan maadnaqnaa wasaaradda horumarinta caafimaadka maanta dad badan baa ka faa'iideystay waxaan u leenahay dadweynaha reer Gabiley ha ka sii faa'iideystaan dhakhaatiir ka kooban 230 dhakhtar iyo 10 kalkaaliso oo inooga yimid waddanka Taiwan marka maanta waxa ay joogeen magaalada Gabiley bay joogeen waxa ay dad badan oo danyara oo awoodi kari weeday dhakhtarka lacagta iska bixin lahaa maanta halkan u fulinayay caafimaad ilaa maanta saaka subaxii waxay ilaa dad gaadhay ilaa 500 qof ayay daweeyeen markaan iyadana ugu soo jeedinaya mahad aan la soo koobi kareyn maxamed booq oo tunka u ritay martiqaad fiican oo sameeyay jazakallahu khayr baan leeyahay maanta waxaan ku suganahay magaalada Gabiley anoo ka fulinayna adeeg caafimaad oo ay ugu tala galeen dhakhaatiirta iyo hawlwadanada caafimaad ee Taiwan ka timid inay dhammaan gobolada Soomaaliland isku baahiyaan maanta fursad bay u tahay reer Gabiley inay ka faa'iideystaan adeegga bilaashka ah ee lacag la'aanta ah dalka Taiwan waa markii labaad bal malay intaan iyo ogaantay horta 2005 bay ahayd bal malay mar ay yimaadeen barbarashan iyo laataniino iyagoo tabarucaad oo dhakhaatiir ahaa Taiwan ah oo dalka la ictiraafay bal wuxuu qabanay maanta sidii kadalku ya dhakhaatiirta tabaruca inooga yimid Taiwan oo ka kooban 35 dhakhtar iyo 13 trial station waxaan aad iyo aad baan horta ugu mahad celinayaa dhakhaatiirtaas oo hogaaminayo Dr. Jiciir oo uu yahay team leader aad baan horta ugu mahad celinayaa waxaan dadka reer Gabiley aan ku boorinayaa inay ka faa'iideystaan dhakhaatiirta tabaruca inoogu timid ee xanuunada kala duwan sida la sheegay qabanaya dhammaanna waxaan jeclahay ilaa one day weeyaan ay waxay nala joogayaan haddaynu u baahano oo iminka boor meeting sida la sheegay way noo soo noqonayaan way noo imanayaan waxaan jeclahay ilaa gelika dambe horta maanta way nala joogaan inaynu aad uga faa'iideysano waxaan jeclahay dadka reer Gabiley inay soo dhaweeyaan marka tabarucaadka noocaas dad aad baan 100% ugu mahad celinayaa waana soo dhaweynaynaa waana ku mahadsan yihiin 100% Khalid Maxamed Daahir TV-ga badda cas gobolka Gabiley